bismillaahi raxmaani raxiim kulan haboon daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya kuwoodii ugu dambeeyay ayaan rabnaa inaan idin la wadaagno saacadba saacad ka dambaysa warar xiiso leh ayaa ka soo baxaya dagaalka Iran iyo waliba Mareykanka ee u dhaxeeya wargeyska New York Times ayaa waxa uu baahiyay warbixin si weyn markaasi loogu digay Trump inuu weeraro Iran ninkii Trump ahaa warqado aad u fara badan ayaa dunida inteeda kale ugu imaaday in uu joojo isku dayo uu ku wado Iran waxa sidoo kale la warinayaa qorshaha ka dhanka ee Iran waqtigan uu rabo inuu ku qaado awoodiisa military waxa isku geeyay bariga dhexe qorshihiisa waa uu diyaarsaday laakiin caawa waxba haysta oo walibana waxa ku dhagan dunidii oo dhan in markaasi gabi ahaan buu joojiyo talaabada uu qaadaya waxaan sidoo kale qubanaha wararka degdegeena soo gaaray aan rabnay inaan idinku kula wadaagno hogaamiyaha ciidamada RSF Maxamed Hamdan Dalago ayaa isaga oo Kampala kula hadlaya taageerayaashiisa wuxuu sheegay in diyaarado markaasi la kiciyay walibana dagaalka gobolka ee markaasi ku yaalan ayna ka hortagi doonaan RSF haddaba maxay tahay isaga oo weerar afka ku qaaday Sacuudi Carabiya iyo waliba sidoo kale xulafadeeda saameynta ka dhalan karto haddii waqtigan RSF mar kale ay dib u soo oloosameedo si ay markaasi diyaaradaheeda kuwa aan duuliyaha lahayn ay sameynayso qodobadaasi waliba waxa kale nagu soo kordha ayaan ku qaadaa ligi doona saaxiibadeedkana noo cimaamada oo channelka subscribe noo saara like-tana saaxiibada hore noola joogo saaxiibo fara badan ayna tusaysa inaga karan mahadsanidin soo dhawaada saaxiibaan wargeyska New York Times ayaa warbixin uu baahiyay waxa markaasi loogu digay in Trump markaasi uu weeraro Iran iyadoona markaasi warbixintu ku sheegtay dagaal kasta oo ka dhanahay Iran in Mareykanka uu markaasi ku wajaho qasaare iyo waliba sidoo kale dagaal daba dheeraaday oo walibana saameyn ku yeesha bariga dhexe ciidamada ayaana markaasi sababo la xiriirta Iran markaasi loogu sheegay in ay haysato kaydka ugu weyn ee gantaalada yaala bariga dhexe oo dhinac kasta markaasi ee gobolka iyo waliba gaar ahaanba si weyn ay ugu difaaci karto Mareykanka ayaa waqtigan wajahaya culeys ka dhan oo dunida oo dhani warqaday u soo dirayaan si gabi ahaan ugu hor istaageen dagaalka uu cilaamiyay isaga iyo waliba Iran xilli madal ay ku madalsanaayeen taasi oo lagu kala tagay waqtigan waa la calaamadeeyay waliba goobaha sida weyn ay ugu dagaalami lahaayeen ayaa midba midka kale soo calaamadeystay laakiin waxa waqtigan ninkii Trump ha farqaha haysta dhammaan dunidii oo dhan ayaa dambaalo kala duwan ugu imaanaya taasi oo lagu tilmaamaya in gabi ahaanba dagaalkiisa halkaasi lagu joojin doono inkastoo aanan wali Trump uusan soo hadlin laakiin waxa cad qorshaha ka dhanka ah waqtigan markaasi ay u qaaday dunida in markaasi gabi ahaanba la joojiyo dagaalka uu wado ama uu ka qorsheynayay bariga dhexe inuu ka fuliyo sabab la xiriira ayaana lagu sheegay in Iran ay haysato gantaalka ugu adag waliba balaastiga ah taasi oo waqtigan la jooga hogaamiyaha dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei uu walibana ugu hanjabay in Mareykanku markaasi gabi ahaanba taariikh culus oo ka raaci doonto hadii dagaalka Iran markaasi faraha uu la soo galo walibana weerarkiisa ugu horeeyay uu ku qaado Iran mana jirto ilaa hadda wali sabab lagu sheegay talaabada Mareykanku si qaadi doono inkastoo warqado fara badan ama email fara badan loo diray ninkii Trump ha gabi ahaanba inuu ka laabto xiisada bariga dhexe uu rabo inuu ku qaaday ayaa waqtigan markaasi gabi ahaanba la hakiyay inkastoo saacadba saacad ku xigta waxa ay isbedeli karaan haddana waxa muuqata in talaabada tani ay saameyn kale ay ku yeelan karto walow aanan wali cadeyn qorshaha ilaa ay hadda ay qaadi doonto Iran iyo waliba sidoo kale xulufaysigeeda ka dhanka ninka odayga Trump ahaa waxa markan wajahaya culeys ka dhan ah oo ugu imaanaya dunida oo ilaa ay haatan saameynteeda si weyn looga arkayo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn ugu daabulayay bariga dhexe hubkiisa kala duwan haday ahaan lahaayeen ciidamada iyo waliba sidoo kale kuwa kale oo aadka markaasi gantaalada ugu shaqeeya walow ay u muuqato waqtan in jab xoogan ay soo fosaari karto isaga oo markii hore la sheegay in uu gabi ahaanba markaas rabay saldhigyo kale dalal ay leedahay inuu ka weeraro Iran laakiin gabi ahaanba iska diideen oo aan markaasi sinna looga aqbalin laakiin waqtigan ayaa u muuqata mar kale in dhambaalada kala duwan uu ka helayo waqtigan ay saameyn xoogan ay ku yeelan karto hadii gabi ahaanba laga burburiyo yoolka iyo waliba rabitaankiisa ku aadanaa inuu markaasi burburiyo Iran iyo waliba sidoo kale bariga dhexe qaybaheeda kala duwan waa laga yaabaa saacadba saacada xigta in Trump oo markaasi waji kale cusub isna la yimaado laakiin wali macda qorshihiisa waxa ka soo kordha halkan ay kugula wadaagi doona hadii Ibrahim uu ka noqdo dhinaca kale hogaamiyaha ciidamada RSF Maxamed Hamdan Dagalo ayaa isaga oo Kampala kula hadlaya taageerayaashiisa waxa uu u sheegay in diyaarado markaasi laga kiciyay dalalka gobolka ee ku yaala inay markaasi ka hortageen RSF iyadoo ay markaasi dib ay u qabsatay Khartoum
halka ciidamada Suudaan uu ku sifeeyay islaamiyiin oo markaasi ay kula dagaalamayaan gudaha Suudaan isla xilligan waxa uu markaasi si adag weerar afka ugu qaaday dawladda Sacuudi Carabiga oo ku tilmaamay inay tahay mid sida weyn ay u curiyaaminayso yoolka RSF iyo waliba qorshaheeda ka dhanka laakiin ma cadda qorshihiisa isagana waqtigan inkastoo laga filan karo qudheeda RSF in ay weerar kale iyana ay qaadi karto waxa kale oo markii ugu horeysay uu sheegay ujeedada RSF ay markaasi u adeegsato ciidamada calooshood shaqaystayaasha ee ka soo jeeda Colombia kuwaas oo ku sheegay in ay markaasi ay u qabtaan shaqooyin ay ka mid ka yihiin soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyagoon markaasi fulinta weerarada diyaaradaha UAV-yada